bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo warida dhaqaalaha kobcay kaalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyeynune kor u qaadayo kulmiyeynune isku keenayo isla garanayo aan dib u xasuusanno xilligii lagu jiray ololihii adkaa u dhaxeeyay murashaxiinta saddexda xisbi ee Somaliland xilligii ololaha ay tartanka ugu jireen murashax Muuse Biixi Cabdi intii aanu xilka dalka ku guuleysan ballanqaadkii ugu horeeyay waxa uu sameeyay shacabka Caynabo iyaga cid ugu tarisay iyaga talada hiraadiye reer Caynabo toodaana noqotaa oo Somaliland oo ku daba gasha oo lagu ixtiraama maantana iyaga laga rabaa Somaliland inay geedi fiican iyo sahan wanaagsan ugu guuraan horena way ugu guureen kulmiyay dhiseen kulmiyay soo saareen maantana kulmiyay soo saarayaan annagu hadii xisbiga kulmiyanahay dad badan baa wax ka sheego inaad sheegaan iyo wax Somaliland waa sheegaan bari ilaa galbeed Somaliland oo dhar ah saasa lagu asaasay xisbiga kulmiye labadii oday saddexdii qof ee asaasay Somaliland bay kow ka hayeen galbeedku kama hadlaan waayo waxay og yihiin in biyaha bariga looga baahan yahay oo kala fog yihiin biyaha macaani saraar Caynabo ballanta koowaad waxa weeye riiga oo horeeyna soo gala in magaalada biyo macaan loogu doono maaha waa loo yaxanaya maaha codayna siinayaan bina aadmigu biyo u baahay magaalada kale way beeyayeen laakiin waxaanu haynaa sahan oranaya Caynabo biyuhu waxay u jiraan 7 kilomitir 7 kilomitir ama 8 kilomitir biyaheeda waynu qodi karnaa riiga ugu horeeya ballantaas waa koob ana ballantii hore cid ka qaado kulmiyo bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo warida madaxweynuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay magaalada Boorama xilligii ololaha ku jiray wuxuuna isdul taagay saami qaybsiga beelaha oo shacabka gobolka Awdal ay ka cabanayeen qodobka saami qaybsiga waxa la tixgelinayaa oo aad iyo aad ugu fiirsanaya saami qaybsiga golaha baarlamaanka ka hadlay waxa aad uga qeyriyay gobolka Awdal waa la dhageysanaya waa la tixgelinaya murashax Muuse Biixi Cabdi xilligii ololaha uu ku jiray waxa uu magaalada Laascaanood ku soo bandhigay arrimaha ay doonayaan inay wax ka qabtaan waana kan isagoo taxaya arrimaha ay bulshadu horumar ammaan iyo deganaansho ku gaari karaan waxaynu maanta wada nimid doorashadii baynu galeynaa waxa hadaynu kulmiyanahay waxaynu ku galeynaa koow nabadgeliyo laba waxaynu ku galeynaa midnimada Somaliland saddex waxaynu ku galeynaa cadaalad iyo sinaan afar waxaynu ku galeynaa horumar dalkeena iyo berrita ka wanaagsan maanta iyo mustaqbalka caruurteenu oo aynu dhisno walaalayaal haddaanu kulmiyanahay codka waxaanu maanta halkan uga doonaynaa kulmiye iyo xukuumaddiisu sool iyo Laascaanoodba dhitaa u taalla halkan Laascaanood may lahaan jirin laami kulmiye ka hor intaanay dawladdiisu qaban waxaynu ognahay jaamacadda waxaanu ka geysanay kulmiye iyo xukuumaddiisu wixii nabadgelyada ay ka qabteen ee ilaa maanta heegan u yihiin ayaanu ku doonaynaa codka ma nihin xisbiye cusub oo malaacawaala oo imika meel barbannaan wax ka bilaabaya walaalayaal anagu waxaanu leenahay wixii horeynu qabannay wixii qabya ah waxay u qabiyeen baanu garanaynaa waa xalinaynaa wixii naga qalocsamay waa toosinaynaa qorshe dambe horumarineed oo midaysanna waynu gelaynaa reesool waxaan ugu baaqaynaa Somaliland mida oo cadaalada oo loo siman yahay oo la wada leeyahay oo mustaqbalka laga wada shaqaysto horena waanu soo jaabinay 5 sano soo socdo qorshahan oo haynaa waa ka reesool waxaan leenahay waxaanu idinku ducaynaynaa in mustaqbalkeenu mid wanaagsan noqdo madaxweynihii hore wadadu jeexay ee nabadgelyada leh ee horumarka ayaynu sii wadaynaa wixii naga qaldamana waa toosanaynaa madaxweynaha Somaliland iyo ku xigeenkiisa xilligii ay ku jireen ololaha doorashada ee kursiga ugu sareeya ee dalka
waxay si wada jira u sheegeen in xaaladda ammaan ee dalka ka leeyihiin laba qorshe oo gudaha dalka iyo dibaddiisa ah. fariinta xisbiga kulmiye oo hayo ummadda iyo murashaxiintoodu arrimaha nabadgelyada annagu waxaanu mudnaad koowaad siinayna arrinta nabadgelyada haddaan nabadgelya jirin aanay jirin horumar iman maayo nabadgelyada waxaynu kala qaadaynaa laba ta gudaha waxaa naga go-aan haddaanu kulmiye nahay in qof muwaadin kasta oo somaliland naftiisa iyo hantidiisaba uu ammaan ugu helo goob kasta uu ka joogo somaliland oo ay ballan qaadayso xukuumadda iyo dowladdu nabadgelyadiisa waxaa kaloonu ballan qaadaynaa inuu helo garsoor xaq ah haddii uu dulmi tirsado isaga oo ay xukuumaddu ballan qaadayso inuu muwaadin kastaa helo gar xaq ah oo u kala xaq sorto isaga iyo cidduu dhan ka tirsanayo baayic mushtari noo socon maayo maalgashi dibadda inoo iman maayo tacliinna baran mayno haddaynaan dhisin ciidamo amni oo inoo ilaaliya nabadda waxaanu xoog saari doonaa dhismaha hay-adaha amniga boliiska wardoonka jeelasha maxabuuskii markuu tago jeelkii waa in wax la baraa ee aan lagu ciqaabin oo uu ka soo baxay isagoo bulshadii wax taraya waxaa isku xidhan ciidamada amniga iyo madax dhaqameedka waxaanu kor u qaadi doonaa aqoonta ay u yeelanayaan dowladnimada iyo ismaamulka madax dhaqameedku iyaga oo hogaaminaya bulshooyinkoodii oo dhaqankeenu suguraanku wada haddana inay la jaan qaadi karaan cilmiga casriga ah waxaanu nabadgelyada u abuuri doonaa oo xoojin doona dhallinyarada iskuullada ku jirta da-yarta in la baro wadan jacaylka iyo wadaninimada iyo u hogaansanaanta shuruucda wadaxaajoodka iyo in waxba nabad ku dhameeyana ilaa in ilmaha yar ee iskuulka soo bilaabaya la bari doonaa taasi waa arrimaha gudaha arrimaha dibadda caalamka kama maarano adduunkana uu isku xidhan yahay adduunkana dhibaatooyin badan baa ka jira waxaanu xoojin doonaa ciidamada qaranka si ay u hubiyaan in xuduudaha somaliland ay ammaan yihiin oo aan cadow usoo hungulon waxaanu iskaashi buuxa la samaysan doonaa caalamka oo dhan wixii nabadgelyo ka shaqeynaya waxaanu ka hortegaynaa wixii khalkhal geliyay nabadgelyada somaliland ta gobolka iyo ta caalamkaba waxaanu abuuri doonaa tala wadaag iyo xog la iswadaarsado dowladaha gobollada ee aynu jaarka nahay oo aanu mudaad siino inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada gobolka waxaanu diyaar u nahay oo aanu ku shaqeyno mabda'a ah khilaaf kastoo yimaada lagu dhameeyo hadal murashixii kulmiye muuse biixi cabdi xilliguu ololaha ku jiray oo uu ku sugnaa degmada raaribul waxaa odayaasha deegaanku ka codsadeen laba qodob oo uu murashaxu uga jawaabay qodob oo odayaasha ay ka hadleen oo mid ahaa adoo murashaxa dhowr jeer baad noo timid markaad madaxweyne noqotaan aanu ku aragno insha allah saas un bay ahaan doontaa arrimihii uu ka hadlay odaygii kale tabashada dhabta ahaa ee 7 sanadood aan cid halkan wax badan aanay ka qaban Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka wax qaybiya ama uu wada qaata oo dad kale u qadiya ama uu qaybiya isaga qada waxay la tahay Ahmed Siraayo hadduu idinkeeda qadiya meel kale oo badan buu xageeyay taasina dhaqankii Soomaalida ahayde idinkana insha Allah Ilaahay wuxuu idin keeni doonaa mid idinkeed soo ku wada qadiya waxaanu mahadnaqaynaa Cabdishakuur meeyarka oo ballama qaaday iyagoo aad dadaalay isaga iyo golihiisu waxaan ku bogaadinayaa intii aan golahan deegaanka hadda joogaa Berbera iman Berbera barigeeda jiidan bariga iyo caasimadda Berberisa isuma xidhnayn golihii deegaanka horeysa ugu warhaynin guul iftiina muuqata oo inamada golaha deegaanka Berberi ee hadda jooga talaabo siyaasi ah oo taraa oo dadka soo dhaweysay oo isu furtay oo wada qabsi ay sameeyeen iyagana waa ducaynayna waana ku hambalyeynayna inay taa ka sii kordhiyaanna waa rajaynayna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahun baa abaarta naga qaad kara ilaahayna abaarta naga qaado ilaahay abaarta naga qaado ilaahay madar khayr qaba hayna siiyo gacanta ilaahay mooy gacan kale biyo keenar gameeyna ilaahay waan baryana abaartuna way nagu raagtay imika iyo hadeer qofna
dadkiisa oo haraadan ama abaaraysan ama abaaraysan waxba ka akhrin maayo dowlad hoose tu dhexe taajir shaksi dad isku mid aynu nahay dad isku mid ah oo kala dareemaynu nahay taana dadaalkeeda waxba kala hadhi mayno wararka xogaalkeena siiseenna waa kuwa aanu wax ka kororsanayno oo qorshaashada aan ku dari doono haddii la yidhaahdo ilaahay waxaan kala jeednaa waa nabada iyo idinkoo nabada inaynu soo noqonno ilaahayna abaartii naga jebiyo inamada golaha deegaankana waa hambalyeelaya qorshaha ammaan ee xubnihii ugu sarreeyay xilligii kulmiye ololaha ku jiray maanta ma ku guulaysan labadii qodob ee ballan qaadeen maadaama xilka dalka ay majaraha u qabteen waxaana intii xilka ay hayeen dalka ka goostay taliya caare oo jabhad samaystay iyo duleedka hargeysa oo gaari lagu afduubtay iyo muwaadiniin hantidoodii meel cad loogu sheegi waayey oo hanjabaado warbaahinta u mariyey 2018 waxaan daafuray saldhigiina laga siiyey dowladda Puntland khaasatan gobolka Karkaar qardho caasimadiisa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan shacab weynaha reer Puntland waxaan u mahad celinayaa dowladda markaan ka warramo ciidamada halkan aanu ku tababarano ee saldhigan laga siiyey iyo kaymaatankii jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka bilaabantay cadaalad darro la yaab leh waxaa ka bilaabantay dulmi ummadda dowladda loo yahay maaha laba qolo maaha waa ummad aad u badan waxay degtaa 6 gobol waxaa ku nool ummada fara badan markii aan ka dhex arki waayey cadaalad rasmi markii aan ka dhex arki waayey dawlad loo siman yahay markii aan ka dhex arki waayey horumar ballaaran oo ummaddu u siman tahay waxaan go'aansaday inaan saldhig weydiisto Puntland si aan u suuliyo dulmiga markaan hoos u dhaadhaco waxaan ka mid ahaa dawladda waxaan ahaa korneyl sare ciidamada qaranka xataa alaanag waxaan ahay Somaliland waxaan suulinayaa sida rasmiga markaan idin sheego cadaalad darrada iyo dulmiga waan soo taagnahay agoomo ku dhintay dalka xaq u leh xuquuq ku leh waxaan arkay laban agoon oo iska soo hortooda midna xuquuqda qaadan iyo midna aanu qaadan halkaas ka arkitaan cadaalad darrada ka jirta markaad eegto madaxweynaha generaalka ciidanka maxkamadda sare fulinta wuxuu isku reer waxa la isku darsaday maxay waxa la isku darsaday waxa la isla og yahay waxa arkaysaa dhiitiyo isku mid ah taliya saldhig ilaa iyo isu duwe cid kula laga sameeyo sidaa markaad u eegto waxaad arkaysaa gobolka Sool dagaalkii waa ka dhamaan waayey nation baa degan waxa degan ummado fara badan degaankayga ka mid ah degaankaygu gobolka Sanaag ilaa Sool ayuu xiriiriyaa dadka halka tuman waxay ka kooban yihiin Somaliland Sool iyo Sanaag ka warqabtaan ciidanka booliisku had iyo jeer isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran ee ilaalinta amniga gudaha wuxuu iskaga jiraa heegan had iyo habeen waxa caawa dhacday abaaro 7:00 saacadu markay ahayd ayaa geerish ku yaala agagaarka hoteelka gaari xamuula oo waaraada oo la markiisu yahay 17560 oo shirkadda Omar leedahay una rarnaa sidayna taarka garaydka lagu laabo ayaa koox burcada oo gaari nooha wata ay gaarigaas oo markaa Krishboog la joogo daroolkuna ka degay halka ay dhaawac u geysteen Krishboogii gaariga ka haysteen xamuulka ciidanka booliisku howlgal ballaaran ayuu galay iyagoo ka duulaya burcadaasi halkii ay gaariga ula jahada ula kaceen ciidanka booliiska ee gobolka Daadmareed Oodweyne ciidamada booliiska ee Cadaadley ciidamada booliiska ee Sabawanaag waxaanu gulinay heegan inay jidadka galaan oo howlgalka xagga kor kaga yimaadaan halkan waxa ka baxay ciidan booliisa iyo saraakiil hogaaminaysa gaadiid nasiib wanaag kooxda burcad iyo ciidanka booliisku waxay iska heleen
meel ilaa 10 kilomitir magaalada Badar Wanaag koonfur ka xigta halkaas waxay sameeyeen kooxda burcadi waxooga iska caabina hase yeeshee anigoo Ilaahay u mahad celiyay ciidanka booliisku wuxuu ku guuleystay inay gaarigii waaraadka ahaa ee ranaa iyo noohay wateen burcaduba ay gacanta ku dhigaan anigu waxaan Faarax Awad Madoobe waxaan dadkii shacabka ahaa ee ka shaqeynayay wadada Ceergaabo iyo Togdheer isku xidha 2016 iyo 2017 lacagtayda waan leeyahay qof wuxuu ku oranayaa waxa qaatay lacagtadii Siinaayo qof wuxuu oranayaa waxa qaatay Cali Marreexaan qof wuxuu ku oranayaa waxba laguma lihid gaadiidkii lacagtayda la soo siiyay oo ka wadada ka shaqeeya waxaan jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa shicibka dadweynaha culimadiinta tijaarta ganacsatada waxaan xidhayaa wadada la ilaa qabiyo tira خير ما تشودو عدنا وما تشودو حمال كي يجيبان دونية الحوينات تمرد سمالنا وحنا شيء حتى لو قلنا قاطي يهدر نصدر له عيد ما يصير الحمد تتكلم تري يهدر واحد يجينا الصين الهيبة تتكلم جاه ظلمان باون هاي قوة هرب بحينا واحد كب بحيل عدالة ترى أنا كنا وقت ده بحينا كولي باون لبس نضل ساوي رجال سين لو وسير ده كوي أنا قلنا ما إنه عنو أجنا وضرتها عرور طيب رجل العكاش غير تيلس يقولون باور طيب وتودوي كفردها وحال يسوي شكيني حباه هرولمري حباه هرولمري تطلع شغل الله أبوره عد شغل الله أبوره سمعتي تقفل وبارك يسمو قال لي بسني وحال لا يحكي تشلال تقول متشلال هذا واحد يقول لسين وتضايقنا تكسومان لنا وسكوع يبصن muuse biixi xilligii ololaha ku jiray waxa uu sheegay in labada mas'uul ee la tartamaya kaga xogogaalsan yahay dalka wuxuuna tusaale u soo qaateen caruurtiisu dalka joogaan wax badan oo ka qaban doona arrimaha dalka ragaadiya haddii uu xilka qabto saddexdii maalmood hore waxay ahaayeen caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha waxaan isleeyahay murashaxiinta kale arrintaa waad uga dhowdihi حزب أهاني يقف هامبا أفيف ورتمرك هورا مركان كذا يمر شحنة كله وحدونا إيران عديه مواطنين الصومالي الآن حركوا أي قيحية حقوق الأسويين غربة شوق يدل شوق لا يسكما أذان كانوا لا جماعة يحسن كانوا قفوا غربة شوق حقوق الوطن كل مدي هاي اللي ما كان سوء كانوا غلط وحانا سوق هذا لنا حركة مواطن أو شيء يعني الحياة لواتك تشوف قف كل بيت والد هل كان كل وراير إنه يهاي مواد السوماليلاند والبتشوق واحد بعض ما يترك ترين رقالة ترين هرمر بيكانين أقوم بيكانين وقدرينا واحترامنا لكن مرك قفل لها ضايو أيو كل حلو منهم والبتشوق صدح المرشح كنت ترتبنا وحلقة هذا تعلينت الله وضع مرشح مدحين وشرحا الله وضع واحد وقال سنة هاي تعلينت السوماليلاند هل كان مرسو لوقت هذا قبته هرمر كسوماليسو واحد بعضها waayo aniga gurigaygaan kooga dhammaan carruurtooda waxa dhigtaa dugsiyada Soomaaliland laga bilaabay elementary ilaa jaamacad marka guriga ka dareemaha progresska sameeyaan iyo waxa dhiman iyaga carruurtooda iskuulada ma dhigtaan waa kala duwan distoorku wuxuu dhigayaa ninka dalka iska sharaxaya ee baasaboor ajnabi haysta xaq buu leeyahay iska sharaxo Soomaaliland laakiin waa inuu labada sanadood mid deganaada taa waxaad moodaa inay ka dhigeen xeerka waafajinta nin xaaskiisa carruurta halkan mu keenin iyagu ma deganaa ترى يكون واحد يملك فهم وخلق عشان يدرك تعافمات والله من أنا أسفل كي جواك السومالي لان وأنا خاطر ثاني يجوا هذا يدور قادن شيء بيس كيف فينا بيتها تحسنا سحمة مركز بتحاول نقصر هو أنا لو ذاكته هذا فهم ويا فهم لا شك عليه أنا هو يدرس تجربة وح قال لي درد هو عرس ببعض دور سنة كور لك تربية هي لك ترى كم بعض عليه وأنا كجلست من أول عرس روح اخترت البروجرس كيسوينا إياه يعني بعتوين كأيلين برايفت يا بابليك با وان وحو غارسنه waxa ka jira oo waa in aan ogeynayo dib xasbe ka hadlaya to horumarinta dhaqaalaha waxa laga yaabaa inuu qof bangalka yeegayo anigu waxaan ogahay oo xisbiga kulmiye tahay ujeedada koobaad iyo fishankiisu inay ogaadaan qofka Soomaaliland xeerada waxa ku jira oo qofku cunayo iyo tayada cuntada uu cunayo muhiimada kooda qofka hadaan xuraynin uu gaajoonaya qof gaajoonayna waxa tarimaayo marka anaga waxa loo qorshaa in la soo saaro cunto ku filan dalka qorshaheedina waa dhameystiray dalku wuxuu u baahan yahay 432 kun oo tan oo carbohydrate wixii aan duxlahayn garow bariis qamadi baasto sawtood
haddii aynu qiyaasnay dalkeenna intaasay nagu soo saaraa iyo 21 saliid ah hadda oontii xoolo way noo dheertay iyo kalluunkii waxaynu u baahannahay inaynu ka beero gobolba 60 gobol 13 kilomitir oo qura waanu helaynaa meel biyo 13 kilomitir ka muuqdo aanu ka ahayn beero waxaan noo qorshay sida kale dhaqaalu baahay 7% miisaaniyadda dalka ayaa cuntada noo saar food security kulmiye waxa ka go'an 5 sano dambe haddii la qorshe ku jirta in uu 2022 ka gaarsiiyo in 8% cuntada ay soo baxdo waxa la beerayaa 13 kilomitir oo qura gool walba balsanaag inta leegtay 13 kilomitir laga beeray togdhar waa inta leeg hargeysa banka wajaala waa 5 kilomitir taasina waa cuntada waa wax hogaansanahay qorooyinka jira waxaan ummadda u sheegaynaa kulmiye haddii aan nahay inaan xoog ogaalnimo iyo dareen wadaag bulshada Soomaaliland anagu qorshaha iyaga iyo waxqabadkooda kuna salaysan laakiin labada qorshaha kale ay u baahan tahay mala awal iyo yeer doona dhaqaalaha kobcay kaalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyaynu ne lamiyada koriyaho korayo ilaa cidhi kayrgalay dalkeenne kadar lagaga soo baxay kulmiyaa horsadee kulligeen kulmiye ugu ridaa tiirka koowaad ee waxqabadka xisbiga kulmiye waxa uu ahaa arrimaha bulshada waxaana xisbigu soo bandhigay baahiyaha waxbarashada iyo arrimaha bulshada ay ka qabanayaan maxaa ka fulay muddo xileedkii madaxweynaha oo hadda sanad ku dhow tiirka koowaad ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye 2017 ilaa 2022 kuwa arrimaha bulshada xisbiga kulmiye waxa uu arkaa waxbarashada furaha horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu xisbigu hiigsanayaa sanadda 2022 in arday kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland uu helo tacliin casri ah oo waafaqsan halbeega waxbarashada caalamiga ah waxa uu mudnaanta siin doonaa tacliinta sare cilmi baarista iyo tiknoolajiyadda waxaana la abuuri doonaa sanduuq gaar ah cilmi baarista iyo ikhtiraca xisbiga kulmiye waxa ay himiladiisu tahay in jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato cisbitaallo casri ah oo bixin kara adeeg caafimaad oo hufan iyo dawo tayo leh oo dhammaantood bilaash ah waxa uu ka dhisi doonaa gobolada dalka 5 cisbitaal oo cusub waxaanu xisbigu hiigsanayaa sanadda 2022 in muwaadin kasta oo Soomaaliland helo adeeg caafimaad oo casri ah xisbiga kulmiye waxa uu qorshaysan oo uu hirgelin doonaa wax soo saarka biyo nadiif ah oo ku filan magaalooyinka dalka waxa uu qodi doonaa 350 ceel biyood muddo xileedkiisa labaad waxaana muhiimadda koobaad la siin doonaa gobolada biyo yaraantu ka jirto xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay inay dhalinyaradu tahay xoogga iyo cududa dalkeena gaarsiin karta mustaqbalka horumarka tisqaada dalka waxa uu dib u habeyn ku samayn doonaa xeerka shaqada iyo shaqaalaha si loo ilaaliyo cadaaladda hufnaanta iyo shaqaalaysiinta dhalinyarada waxaanu abuuri doonaa barnaamijka laylinta dhalinyarada qaranka dhanka ciyaaraha xisbiga kulmiye waxa uu xoojin doonaa tayada waxqabad ee xidhiidhada ciyaaraha Soomaaliland waxaanu dhisi doonaa gagada ciyaaraha qaranka si heer caalami ah waxaanu joogtayn doonaa ciyaaraha gobolada ee heer qaran iyo ciyaaraha horyaalada naadiyada Soomaaliland xisbiga kulmiye waxa uu qirsan yahay in ay haweenku yihiin lafdhabarta ummadda waxa uu sii wadi doonaa dadaalada kor loogu qaadayo awoodda haweenka ee dhinaca dhaqaalaha ganacsiga caafimaadka waxbarashada iyo siyaasadda waxa uu sii labilaabi doonaa sidii haweenka looga qayb gelin lahaa maamulka iyo hogaaminta hay'adaha dawladda xisbiga kulmiye waxa uu ku dadaali doonaa sidii ay haweenku qoondayn uga heli lahaayeen kuraasta baarlamaanka siyaabo badan oo kala duwan ayaa loo faquuqaa dadka laga tirada badan yahay xisbiga kulmiye waxa uu xoogga saarayaa sidii beelahaasi u heli lahaayeen xuquuqaha ka maqan si kor loogu qaado xaaladaha dhaqan-dhaqaale bulsho iyo horumarineed ee beelahaas waxa maalgelin lagu samayn doonaa xirfadaha ay leeyihiin kuwaas oo ka qayb qaadan kara horumarka guud ee dalka waxaana kor loo qaadi doonaa shaqo abuurka aqoon-yahanka iyo dhalinyarada beelahaas
xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay inay warbaahintu tahay tiirka afraad ee qarannimada waxa uu dhowri doonaa madax bannaanida saxaafadda Somaliland si waafaqsan dastuurka iyo xeerka saxaafadda waxa uu hirgelin doonaa dugsi ama kulliyad saxaafadda lagu barto waxa uu dhammaystiri doonaa xeerka saxaafadda ee qabyada ah waxaana la abuuri doonaa guddi heer qaran ee anshaxa iyo maamulka saxaafadda oo madax bannaan si aynu u gaadhno berri maanta ka fiican muwaadin codkaaga ku taageer xisbiga kulmiye murashaxa xisbiga kulmiye xilliguu ololaha ku jiray waxa uu si cad uga hadlay in qabyaaladu ka xoog weyn tahay qarannimada isla markaana loo baahan yahay in la iska kaashado oo laga baxo qabyaalada loona guuro dhanka qarannimada waxa uu ku xiga oo maanta uu dastuurku ogol yahay inaanu qoro kaliya siinin awood qaran oo ay yeelato awoodda wuxuu siiyay muwaadinka Soomaaliland waxaan doonayaa mar haddaad kulmiye taageerteen orafkii kulmiyana ku hadlay kii murashaxna ku hadlay inaynu isla fahamno oo ay noo caddaato waxaan isku taageerayna walaalayaal iminka waxa dhagaheenna barjeeyay qabyaalad waxaad maqlaysaa makhaada tagtaba annagaa laandheereeya annagaa badan haddaad xadiiskii rasuulka eegto markii asxaabta waxaa loola yimid uu yidhi waa wixii jaahiliya xamiyat aljaahiliya markuu yidhi bilaal oo xabashaa ugu laandheeraysnaa dadkii mee jooga aadinka qaaday oo aadinka loo dhiibay waayo isagaa ilaahay ugu dhowaa maantana waxaa laandheeraya kufaarle ninka allana ka cabsada ee taallaa qabsada dadkana samafal u sameeya Somalilandna ku dhaarta oo ku dhaarta oo ka baxa reer yar oo qooban oo degmo iyo tuulo yar oo kula ku kooban qaran ku noqon mayno oo barinta dawladda lagu hogaamin kari maayo qaran ay qabiilku ka adag yihiin qaran noqon maayo maalin walba waxaynu aragnaa ciidanka jooga meel ka mida tuulooyinka ama degmooyinka faraha badan ee la sameeyey askariga jooga haddii uu iskaga qabo nin dambiila oo ama wax dhacay ama wax dilay waxaaba dhacday mararka qaarkood in reerka meesha jooga macasheekhood iyo odagooda qori ay soo qaataan oo idhaahdeen ma annagoo reer hebelaa inankayga la taabanaya ma jiro nin waliba هذا أنا أتوقع إنه كان يساعد هذا هذا رسوم قال قف ولا رجية دمر قف ولا مال بول لقى يا لقى ترب بديها والله إذا عدة هرك ضغط لقى ترب بديها قف ولا مال وحوا يندرن هو يندرن دورة قف كترنا كونه قدرت كترنا يا هلا وهم سوى qof waliba markuu deegaankiisa ka tago deegaan kala marayo hadii qolqolo la eego waa laga tirbadeeyaa ma waxa jira qabiil ugu tiro badan Somaliland ama Soomaali meel digta kaliya u tiro badan inuu jira hadii la eego dalka ugu baasan sheekhash baa daruntii daadaba ka cabto ugu badan Soomaali sheegan laba qori ma jirto kulmiye Somaliland ugu kulminaya dadka oo dhan buu kulminaya aasaaskiisa iyo aragtidiisa caynkaasa taasaynu ku galaynaa ma nahin meel kooban waxaanu raacsanahay oo noogolahay ninkii abwaanka haystuu sameeyay hankaagu ha dhaafa reer hebel taasana waa aaminsanahay murashaxa kulmiye markuu xilka madaxweyne ee dalka ku guuleystay isaga laftarkiisa ayaa lagu dhaliilay inuu qabyaaladnimo uga faa'iideystay xilku uu qabtay waxaana been noqday hadalkiisu uu ku ololeynayay xilligii ololaha ku jiray waana kan siyaasi si cad u sheegaya qabyaalada madaxweyne Muuse Biixi ku kacay qabyaalad foolxun madaxweynaha qaranka Muuse Biixi dhowr iyo 70 qof buu magacaabay bal diiskiisa dib ha u raaco soo dhan waa laga gardaran yahay liiskiisa dib ha u raaco oo siday tahay inta reer leeyahay iyo inta Soomaaliland leedahay isu qiyaaso konton iyo wax ka siyaadaaba dhinac kaliya noqonaya talabaad markaynu qaran doonayno madaxweyne iyo jananku inuu isku qolan noqdo maaha
madaxweynihii iyo wasiirka khaarijigu inay isku qolo noqdaan maaha madaxweynihii iyo maxkamadda sare inay isku qolo noqdaan maaha waa markaynu qarannimo doonayno cadaalad darre ilaahay naguma oga laakiin waxaannu tilmaamaynaa inta aan isqaban karin markaa madaxweynaha qaranku isagu raalli ma ku noqon karaa oo ma doonaya dalkii inaanu horu socodba noqonin waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka mucaarad kuguma nihin qarankana waannu dhisaynaa beelnimana ma doonayno qaybsanaanna ma doonayno bal adigu wax isu miisaan waa markii koowaad ee jabhad inaga dilaacdo jabhadda anigu lama socdo ma qirsani qaladka waxaan anigu u tirinayaa muuse biixa annagoo 8 nina baannu kala hadallay oo ninkaa aan soo qabanna baannu nidhi qoladii uu diray beelaha heshiisiintooda way kala hadleenoo talada ku soo darbaa layidhi beeshu way ka tashatay waa laga soo dhammeeyey inuu talada reerka qaato dawladdu iyadaa tidhi noo daaya derajada dalka way bugtaa fiilaan iyo derajuu keenay maanaan diidanayna way wanaagsanayd laakiin cadaalad ma loo bixiyey kii derajada loo diiday wuu ciil qabaa oo aad buu ciil qabaa kii xilsugaan laga dhigay ee derajada la siiyey waa ciil qabaa kii soo jireenka ahaa ee askari gaboobay ahaa ee derajadii hoos loogu dhigay inuu jabhada laga sarraysiiye waa ciil qabaa bahasha ciil baa ku dhex jiray guurtii baa shaqayn jirto waxay iyagu soo dhammeeyaanoo dib u kacdoontaa ma jirto waana laga qabsado waxaa wasiiraa loo diraa wixii iyagoo qabyaabay ka tagaan dabeedna dib bay u bukootaa shacbiga kaliya kugu soo dhaweeyo adiga ku jeer muda sharaf iyo karaame kulmiyo mar kale hoo kalsoonida shacbiga hano kulmiyo mar kale hoo kalsoonida shacbiga hano kulligeen kulmiyaane kulmiye ugu ridaa kulmiye ugu ridaa kulligeen kulmiyaane kulmiye ugu ridaa kulligeen kulmiye ugu ridaa toddobaadkan qaybtii koowaad ee barnaamijka xasuusaha ballanqaadyadii madaxweyne muuse biixi cabdi xilligii ololaha ku jira ayaan intaasi ku soo afmeeraynaa la soco qaybta labaad ee barnaamijkan kugu soo dhaweeyo adiga ku jeer muda sharaf iyo karaame kulmiyo mar kale hoo kalsoonida shacbiga hano kulmiyo mar kale hoo kalsoonida shacbiga hano kulligeen kulmiyaane kulmiye ugu ridaa kulmiye ugu ridaa kulligeen kulmiyaane kulmiye ugu ridaa kulmiye ugu ridaa idiba Somaliland dhammays wada qabsaday utoshahay dadkii kabaliyo galbeed shacbigu garab toogsaday idiba Somaliland